السلام عليكم ورحمة الله. فيديو ما أنت حكساب سنة هاي سكيني فات. سكيني فات معلها نروح عطاء لكن على له أما هل كان كليها كبورن أما مال كبورن لكن عاد سيدي مالها كلا أنا كبورنين إن سيدي قبلها وكله عطويان لكن لغها مالها أم هبس مالها أي كبورنين soo marka dad badan mar badan ay weydiiyay ani ma buurni laakiin calool bas ay ugu tahay caloosha iskaga ridaa aniga ma buurni laakiin gacmaha kaliya ay hilib iga yaala iskaga ridaa soo marka videogan ayaga ay ku socdaan horta skinny fat Soomaalida badankeena saas oo badanahay boqolkiiba 60-70 waxa weeyaan qofka ma buurno caato weeyaan laakiin calool ay ku taala marka generic waxa maleena wax jirkeena bini'aadanka jirkeena Soomaali ahaan hadaan nahay leenahay Soomaalida badankood caata ay u dhasheen horta anagoo caata ah marka ayaa cuntadii aan cuneynay waxay ka kooban tahay carbohydrate kaliya bariis baasto canjeero intaas ka kooban intaasna de haddii ay badato waxay isku bedeshaa hilib marka sababta ugu weyn waxaa filayaa inay midaas tahay maxaa xal lagu xalin karaa midda skinny fat waxaa lagu xalin karaa koodii hore inuu qofka hilibka iska dhameeyo video hore uga hadlay waxaa jira bodybuildingka bulking iyo carrying wax la dhaho waqti jirka la weyneynayo ama waqti hilibka la iska ridayo soo marka qofka skinny fat ka haduu jirki weyneeyo calooshii weynaanaysa marka weynaanaysid jirkiina calooshii way la weynaanaysaa soo marka midaas uma baahnid inaad samaysid adiga qorshaha ugu weyn waxaa waaye calooshan inaad dhamaysid calooshan waxaa ku dhameyn karaysaa in aad samaysid carrying wax la dhaho hilibka aad wada dhamaysid waa ogahay inuu hilib xawadkii meelahan kale hilibkaaga yaalin soo marka wax dhamaanaya waxaa waaye calooshii haddii hilibka wada dhameynayna dhahno calooshii wax go-aaya calooshi markay go-do meel aad ku hubsatid kadib muruq dhisid ayay usoo jeesanaysaa gabdhihii sidoo kale markii meeshii hilibkaaga badnaay dhamaado ayaa jirkaaga wuxuu noqonayaa almiitadii caadi ayay u bedelanaysaa jirkaagii wadi la wada dhismaya faa'iido badan ayay ku leedahay midaas maxaa yeelay hadhow hilib hadduu ku fuulo caloosh kaliya makaa aadayo meel walba oo jirkaaga ka mid ayuu aadaya maxaa yeelay ruux almiitaynaya ayaa tahay soo marka waxa kaliya aad samayn karaysid waxaa weeyaan inaad jirkii idin hilibkooda dhamaysid jirkii idin markaa ku dhahayo kama wada macnee hilib halkan igama yaala ayaa tiri hilib halkan ma ka dhamaanayo waa sax maba ku yaala wileen wuxuu ka dhamaanaya meeshuu ku badnaay hadhowna meesha ugu dambeyso hilibka uu ku harayo waxay noqonaysaa meesha hilibka ku badnaay waa easy sidaas inaad hilibkooda dhamaysid kadib almiitadaada kusoo laabatid cuntadaadana aad nadiifisid waa midaas wax kale uma baahnid haddii ay is leedahay dhalinyarta waxaa arkay dhalinyaro badan oo gymka joogta waxay sameynayaan ayagii calool ku taala skinny weeyaan laakiin wuxuu isku dayaa inuu murqo badan dhiso markaasa waxaa ka dhacaysa khasaaro badan murqohu dhisayaa laakiin calooshii ma dhamaanaysa exactly sideeda ayay taagnaanaysaa hadhow waxay noqonaysaa marka sanad ama 6 bil kadib inuu jirkii hilibka wada dhameeyo midaasoo dhib weyn u keenaysa maxaa yeelay murqihii oo dhisay ama hilibka uu dhisay ayaa hadhow waxay ku qaadanaysaa waqti kale inuu hilibkaas rido soo marka waxaa ku leeyahay haddeertan hadda inta cusub tahay caloosha hilibka ka dhamay kadib jirka idil hadhow dhiso marka waxaa filayaa inaan su-aashaas ka jawaabay dad badanna ee si fiican u fahmeen haddii video wax ka faa'iiday please subscribe asxaabtaadana la wadaag